waryaadahan hello waa qumayo hore xildiid waa aniyo soo laabtay. Okay, so sheekadani waa qaybtii saddexaad yaa dhowr qaybood playlist baa u sameynaya dayaxan ku buuxsama geedkii caddahan la daa. So waxaan idhi waxaynu kusii soconaynaa sheekadii ku saabsanayd magacyada kala duwan ee Venus ama Faynus ama waxar yar loo yaqaano baynu sii wadaynaa. Midaanteen dramada Greco Romanka ama Greco Egyptian Roman tolkii baynu ka hadlaynaa. waa waxaan ay imika yidhaahaan Ptolemy. halkan aan soo dhigayaa ninka yidhaaheen ee geesaha lahaa ee generaalkii bilaabay maxaan ku idhaahayay the Ptolemy families. waxay yidhaahaan dee annagaa dhaxalnay faraaciintii sheekadoodii waa halkan dee sheekadu ka caddaanayso ay ka reer galbeydsanayso masartan madahandeen masare. marka waxaynu dib ugu laabanaynaa Faynus ilan libro maxaa maamula cadaaladda Faynus baa maamusha tilaambada sidate baa maamusha sheekadeedii isfani walaahi haddaad u fiirsatid maaragtay quruxda marka laga hadlayo uu qofkani uu qurux badan yahay waxana qurux badan tahay beautiful experience qurux ilan Venus waxay maamushaa quruxda iyo lamaanaha iyo jacaylka iyo dee waxyaalo badan oo aestheticska the beautiful things in life ku saabsan. madahandeen qorax baa igu soo dhacday qurux iyo qorax halkaasaa laga keenay nuurka iyo iftiinka laga hadlaya. madahanteen aspectyo badanna way leedahay abundantia bay yidhaahaan abundance halkay ka timid barwaaqo ilaa sheekada markii masculine keliya nin keliya laga dhigay wixii dee masculine laga dhigay moogtahay ilaa nimankiiba kuntoob imka soo xidhay oo iyagaaba dee feminine aspectkii raba inay matalaan annagaybaba rabaanba inayna qariyaan waxay iska dhigayaan cadaalad iyagu inay yihiin iyagu inay dee barwaaqo yihiin. barwaaqo marka lasoo gaabiyo masculine laga dhigo oo waaq weeye waaqna waxa weeye dee astaantii ilaahay u taagneyd eebihii ay u yaqaaneen dadkii hore ka roobka keenaya roob doon ilaa haddaba roobka waa la doonaa ma fahamteen dee roobkuna barwaaqaduu ka mid yahay. oh my god shalay toole maysadaraad baan waxbaa raadinayay nin Cicero la yidhaaho amshow halkanaan soo dhigi dana oo lahaa la yidhaaho wuxuu ahaa dee nimankii khatartahaa Greeka philosopher iyo dhadhadhaada magaciisa Cicero baa la yidhaahaa oo isagaa faahfaahin dheer ka sameeyey magacan Venus waxyaaluhu kusoo koobay baa waxyaaluhu sheegay na waa idinla wadaagaya ku saabsan dee astaamaha ama magacyada kala duwan iyo enerjiyada kala duwan ay Venus u taagan tahay. but anyways ninkaasi Cicero ciise markaad baadhid magaca Cicero what's the meaning of it markaasay kuleeyahay waxay ka timid ereyga chickpeas. midan saxaab lahay baan weydiiyey waar chickpeas soomaalidu may taqaanaa markaasuu igu yidhi digir buu yidhi markii hore markaasaan waar digir maahe waan soo baadhayaa isug waxa weeye garbanzo beans bay ka mid tahay markii af Soomaali waan ku soo helay oo waxa la yidhaha magacaad naanays bay Cicero waa naanays weeyi because wuxuu ahaa familigiisa ayaa barwaaqada lagu sheegayo waxaa laga hadlayaa un beeraley iyo xoolo dhaqato un ilan dhulka waxaad kasoo saari karaysin baa important madaante barwaaqadii hantida halkaasay ka imanaysaa xoolo ma leedahay dhul ma leedahay wax ka beeratid. so chickpeaska af Soomaali waxaa loo yaqaanaa shumburo soo baadha wata shumburu dhulka Soomaaliya may ka baxdaa kas waxaa lagu sheegaa bariga fertile crescent bariga dhexe but shumburo chickpeas so magaciisu waa shumburo madahanteen and then waxaa iga soo horbaxday hadhuudh iyaduna ilan sheekada abundance barwaaqada markaan ka hadlayo iyo roobka waxaad ka fahmaysaa dhul fiican wax laga beeri karayaa la isku haystaa fertile crescent oo roob yimaado oo dee dhul maaragtay nafaqaysan oo fertile
maadaamay venusna astaantii dee u taagan tahay fertility wax soo saarka waxaynu u fiirsanaynaa maxaan ku idhahayay ereygan iminka xitaa hadhowdhka yaa garowga ila halkan magacan garowga ka yimid isn't that interesting waxa weeye garowguna wuxuu u baahan yahay oya garowgu iyo dee waa sorghum baa loo yaqaana af soomaaliga af ingiriisiga sorghum weeye yaa garowey waxa weeye hadhowd ka mida soo maaha dee waa waxan iminka nagu laxooxda ka samayno ya halkan aan soo diraya masaaridii hore laxooxda way samaysan jireen oo sida imka u samayno ayay saasay indhowgu yeeli jireen ya marka garowgu waa sorghum weeye magaaladaasna garowe waxaasaa loogu magac daray ma fahanteen oo waxaa la beeraa garowga maaragtay waqti gu'ah waqti barwaaqa waqtigan oo kale ya dhulka soomaalida oo wuxuu u baahan yahay biyo badan garowgu biyo badan buu u baahan yahay marka waqtigu roobku badan da'ayo guga ayaa la beeraa waa iminka inaad wixii soo garaysaa sowan and reaping hadhow toole September iyo dee markay waqtigu maaragtay isbedelayo ya 6 dambe sane ee dee dhulku waa waxba kasoo baxayn waa inaad isku diyaarisaa ma fahanteen adduunkuna waa intaa un dee waa hadhiyo labadiisa gelinuun because cadceed badan iyo biyo badan buu u baahan yahay inuu baxo sorghum hadhowdkaasi ama garowgu ma fahanteen marka intaad siyaasad xumo buga iyo balaayooyin xumo buga iyo nin madhan oo nacamley ah aad u daba safanaysin orda wax beerta taasina waa in yaroo rabay inaan ku daro very interesting way okay sheekada xigeen u celiya waxaan idhi 20 degrees bay ku dhacday ayuu dayaxu ku dhacay godka Libra baan earlier it's not actually 20 waxa weeye 24 degrees yeah 24 degrees ayay Sabian symbolka 24 degrees ayay ku dhacday godka cadaalad ayuu dayaxu ku dhacay godka cadaalada ilaan dayaxu waa ninkii baa godka ku dhacay at 24 degrees ma fahanteen oo marka Sabian symbolka idinka tusay waxaa la yidhaahaa a letter is seen descending to a man nin baa warqadii usoo socotaa cirka samada ay warqadineen uga timid maalmahana maxaa socdaa iminkaa bay maqlay wax laga hadlayay warqado la jexjeexay iyo markaas alla wallahi energygan waxyaalo badan bay aniga ii muujinaysaa I don't know about you lan anuu dhegdheer baan ahay dhegdheernimadayda waan ku faanaa yeelanba idinku naag butiyo dad qalataad u taqaaniin dad qalatayaasha dhabtaana ma soo qaban karaysiin waxbaa idinka sii aragtidiina marka messagekani a letter is seen descending to a man waxa lagu leeyahay the symbol represent symbolkani wuxuu astaan u yahay communication iyo dee maxaa la yidhaahaa warka la isku gudbinayo messages revelations waxyaalo maskaxdeena markaynu suu eegno aynu fahmayno marka waa inaad exchange of informationki information meelahay ka yimaadeen se la isku maxaa la yidhaahaa dee isweydaarinta informationkan xogtan xageed ka keentay qofkani markuu ku keenayay qof sidee wey waxyaalo badan waa ina u fiirsatid adigoo dee maaragtay dhabt ama maskaxda ku hayaa thiimamka ama dee astaanta ay u taagan tahay Libra oo cadaalad oo wixii waa inaad balance u yeeshaan miisaanta okay so Sabian symbolku kaasuu haa marka anigu waxaan idhi waxaa idinla wadaagayaa aniga labada meero ee godka Libra igaga dhacay maadaama uu dayaxuna ku buuxsamay 24 degrees godka Libra godka cadaalada anigu waaban u dhowahay because kaygu laba meel Saturnkayga ama raagahayga oo astaan u dee raaga kii raagaya kii lasanada inaad qasab ku qaatidood baratid basically waxa weeye awow oo kale oo waa father symbol oo kale oo astaan u structure and xiriiryada soo jireenka and structure responsibility and iyo discipline
ilan waa inuu discipline ku yeelay markastuu imaadana Saturn qofku wuu karbaashaya waa awowgayo ku imanayo ku karbaashaya oo kule ma bullshitkin baad ku jirtaa wax maada waxba fahmayn oo ka gudbayn marka Saturn weeye Saturn waa raagahayga ayaa godka Libra ku dhacay and 20 degrees yeah marka same being simpleka 20 degreeska baan idin macnaynayaa aniga tayda also Pluto-gaygana wuxuu ku dhacay godka Libra 27 degrees yeah marka haddaynu ugu horreysiino shakadii Venus waan soo wadaa iyo magacyada kala duwan iyo fortune baynu ku hadlaynaa erey ama magac iminkaynu isticmaalo aynu ku bilowno Saturnkayga godka Libra ku dhacay raagahayga godka cadaalada ku dhacay 20 degrees yeah 20 degrees iyo some change marka 21 degrees baynu kusoo koobaynaa and Sabian symbolka ama astaanta la sawiro waxa weeye a woman holding a balance yeah naag miisaanka haysa waa astaanta Libra weeye aniga astaanta Libra lagu sheegayo imikaas baaba Saturnkayga raagahayga ku dhacay yeah markaas qaar ku leeyihiin naagi garta ma goyn karayso waar naagaha qaarkood garta weyba iyagaaba keenayba ma fahanteen marka raagahayga Saturn Libradayda godka Libra waxay kaga dhacday 21 degrees Sabian ama 7kan shakada taagan symbolka taagan waxa weeye oo sawirka waxa weeye Libradii laftigeed cadaaladii laftigeed a woman holding a balance waa saameynta aniga igu leedahay cadaaladii baan hayaa ma fahanteen and so themes of balance harmony iyo justice yeah yaa laga hadlayaa cadaalad basically wax cadaalad miisaaman weeye oo harmonious yeah oo waa inaad wixii maaragtay isbarbar dhigtaa yeah fairness inay ku jirto cadaaladaad qaadaysid fairness yeah iyo the diplomacyna waa loo baahan yahay waa inaad diplomatically wixii u xalin karaysid yeah with no emotions iyo no bullshit iyo waxyaalaad ku daraysid shaydaannimo looma baahno diplomacy baa loo baahan yahay and maadaama Saturnkayga ku dhacay godka Libra at that degree and uu Saturn u taagan yahay the structure responsibility and discipline yeah awowgay xiddiida cadaalada yahay yeah and waxa la ii muujinaya ama laygu leeyahay focuska saar yeah balance miisaan inaad yeelatid inaad qof fair noqotid and responsibilitygaadana yeah hadduu xilku saaran yahay xilkana waa inaad qaadaa ani waxaa oran jiray xiddiid baana xil ma rabo waa iska qaadanaya ilaa waa calafkayga iyo responsibility iyo Librana dee Venus baa maamusha marka relationshipyada laga hadlayaa aan dadka kale la leeyahay relationshipyadeedu inay ku salaysan yihiin yeah and harmony yeah inay very harmonic yihiin yeah and oo cadaalad oo fairness ku jirto yeah in all your duties and obligation yeah duty kastaba ama obligation kastaba shaqo kastaba waa inaan saas u miisaamaa wax ma fahanteen intaasi waa intii raagahayga godka Libra ku dhacay yeah Libradii oo dhan baana and next video baynu sii wadaynaa sheekada marka waxaynu ka hadlaynaa meelaha kale ee la yidhaaho Pluto oo ku dhacay godka Libra isaguna and shaxda dhalashadeeda natal chartkayga 27 degrees yeah oo Sabian symbolkeedu iyo astaanteedu sawirka la sawirayo uu yahay an aeroplane hovering overhead yeah diyaarad maaragtay maxaa la yidhahaa hover garaynaysa oo wax dul taagan yeah what does that mean symbolkaas intaas meaningaas aynu macnaynayna and then intii ku saabsanayd Venus fortune calaf luck yeah sheekadaas aynu guda galaynaa the next video
intaan soo cunayaa markaas haddana usoo fadhiisanayaa because maanta waqti baan hayaa not the rest of the week maybe Friday ama Saturday one of those days waa idi salaame